oo runtii markasta u taagan kor u qaadida dhalinyarada si gaara iyo si guud ahaan ragga Soomaaliyeed. haddii aan ku soo dhawaado sheekadayda waxaan ka mid ahaa ragga siigeysta daawado filimada galmada ah wuxuu ka wadaa poonka xasuuso hore oo galmo ah gabdhoona dhex maray marmarna ku siigeysan jiray maalintii ugu yaraan ninka 3 jeer buu siigeysan jiray muddo 13 sano ku dhawaad ah oo aan xaaladada ku jiray markastana aan raadinayay sidaan uga bixi lahaa 13 sano ninkan siigeysanay okay haddaysan nolol bedel kale jirin bal dhageysan ninkan sheekadiisa ilaa dhamaadka 13 sano siigeysan oo uu dhahay xaaladada baan ku jiray markasta aan raadinayay sidaan uga bixi lahaa waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ah in video aan ka helay YouTube-ka anigoo marka wax yar ka hor siigeystay 3 jeer si fiican u dhageyso video wuxuu ka wadaa video anigoo aan leeyahay jaamacadana u gooyay videoga waxaan ka helay YouTube waxa la yiraahdaa jooji siigada xaliya live TikTok uguma talagelin inaan daawado mana aqoonin laakiin heesaan daawanayay markay ka dhamaatay buu soo galay aad baan u naxay markaan daawaday waxaan mooday xaliye aniga inuu iga hadlayay sida qof daaqada iga soo fiirinayay oo kale markuu daawanayo video aan ka hadlayay siigada jooji 3 jeer buu ninkan siigeystay qolkiisuna ku dhex jiray naftaydaan u xanaaqay ilma iga timid waan istaagay iPad-kii aan gacanta ku hayay baan dhulka ku dhuftay shaashadii baa jabtay mobilkayga iPhone 8 ahaa baan isagana dhulka ku dhuftay wuuna damay cirkaan fiiriyay waxaan kor u iri maanta laga bilaabo wallahi billahi tallahi mar dambe ma siigeysanayo filimo galmaana ma daawanayo xasuus horena kuma siigeysanayo waan isbedelayaa aad baan u ooyay dhageysan ninkan sheekadiisa waan soo baxay albaabkii aan hoosta ka soo xirtaan furay daaqadihii baan wada furay suuligaan galay waan qubaystay waan soo baxay waanan tegay maqaaxi waxaan soo iibsaday warqado A4 ah oo qalin iyo qalin waxaan bilaabay inaan ku qoro waxa ay haysta iyo sidaan uga bixi lahaa alxamdulillah waxaan ku biiray group nofab community videoyada iyo podcastyada live-ka TikTok-gaaga ima dhaafaan schedule-ka ayay igu jiraan labada live-ba inaan daawado habeenada jimcaha sabtida iyo axadda wuxuu ka wadaa YouTube-kayga iyo TikTok-gayga adiga kaliya ayaa follow ii ah TikTok-ga notification kalena iguma jiro caawa oo jimco ah oo labada live ee macallin xaliye aan sugayo waxaan marayaa 74 maalmood oo aan nadiif ka ahay siigada okay wax qaawana aanan arag wuxuu ka wadaa 74 maalmood muuna siigeysanin porn mu daawanin soft porn mu daawanin soft porn waxa la naagaha dabada TikTok ku ruxaya Instagram-ka naagaha sawirada soo galiya waxa soo dhan okay mu daawanin ninkani alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale waxyaabaha aan isku arkay 74 maalmood markii uu siigada joojiyay kadib waxa kamid ah tamar fara badan baan helay skinkaygi baa soo noqday that means the more aad siigeysatid waa the more protein ku ka baxayo so skinkaaga uu qayirmaya skinkaygi baa soo noqday indhahaygi cadaan bay noqdeen awal indhaha gaduud bay ahaayeen waayo waa dhafraysa waadna siigeysanaysaa so zero energy baa tahay dhafarna way ku haysaa so indhahaaga markasta telefoonna waad ku jirtaa maanta dhan oo waxaad daawanaysaa porn so indhahaaga no way ayuu cadaan karayaan sida indhahaaga kala doo cadiin uma cadaanayaan habarteed bay ka tahay indhahayga cadaan bay noqdeen awal gaduud bay ahaan jireen candhuuftii badnayd oo afkayga soo buuxsami jirtay oo meesha ka baxday candhuufta badan waxaa waaye markasta la laba iyo qashin baa kusoo qabanaya because maanta dhan waxaad daawanaysaa video galma aad daawanaysaa okay xubinkayga taranka oo soo adkaaday suuliga aan ku noqon jiray hal mar oo kaliya aan isticmaalaa kalsoonideedii kor bay u kacday codkayga oo faseex noqday oo qofka imaqlayo oo si fiican u fahmi karayo arinta aydan fahansanayn waxa waaye u fiirsada ragga dhalinyarada haddaad aragtid nin indhaha gabgab ka siinaya oo codkiisu hooseeyo u hadlaya waxbaa ka khaldan ninkaas uu siigeystaa waayo kalsoonida iyo maaragtay that handshake-gaas maaragtay ninnimadaas kugu jirta hoos bay u dhacaysaa low bay noqonaysaa ma face garayn kartid dadka ma dhihi karaysid si adag handshake uma saari karaysid okay eye contact dadka lama samayn kartid wuxuu dhahay marka
kalsoonideedii kor bay u kacday codkayga faseex buu noqday qofka i maqlaya si fiican buu i fahmi karaa eye contactigayga waa soo fiicnaaday hurdadii baa ii toostay oo hurdo fiican baan habeenkii galaa okay arrinta kale aan ku daray waatan waxaan rabaa inaan kaaga mahad celiyo inaad sabab u ahayd inaan caafimaado thank you brother abaalkaaga ma gudi karo sanado badan baan ku jiray god mugdiya oo aan ka soo baxay alxamdulillah maanta waan caafimaad qabaa 6 maalmood baan gym ka tagaa okay cunto fiican baan hagaajistaa weli asxaab ma samaysanin waayo xirfadahayga weli si fiican uma dhisin dhammaan social mediaha waan iska bloggareeyey 5 salaadood waxaan isku dayaa inaan masaajidka ku tukado qof kasta oo aan is aragno wuu is salaamayaa wuu is soo dhaweynayaa mana garanayo sababtu waxay tahay hal wax baan kuu sheegayaa markaad markaad nafsadaada si kalsooni leh aad u soconaysid haddana achievementskaaga markastaad wax qabatid nafsadaada nin ahaan kalsoonidaada kor bay u kacaysaa so wuxuu ku leeyahay ninkani like qof kastaan arko uu soo dhaweynaya uu salaamay waxaa ma taqaanaa waxaa la dhahaa inside reflection baa ku dhacaya qofkan waxaa ku dhacaya nafsadaada waxaad ka aaminsanayd now clean baa tahay kalsooni baad leedahay mugdigii baad kasoo dhex baxday wax kasta waxaad u arkaysaa si toosaad u arkaysaa right like energygaagii sexual energygaagii waad kaydisay goodness like so qof kasta wuu ku notice garaynayaa inaad laba xaniyo tahay qof kastana uu ku salaamaya qof kastana ku soo dhaweynaya that's say tahay waaye markan kale laakiin waad duumanaysaa adiga dhawaad bahdilan tahay waan fiicanahay indhahaasaad ku haysaa eye contact ma samaynaysid markan kalena hey waxaad leedahay hey ii wararseetiin xaaladda ka sheekeeya okay arrintaasaa dhacday maasha allah like conversationka xataa si toosaad u wajahaysaa naagaha xataa way ku approach garanayaan iska dhaaf dadka kale xataa iyo ragga kale so wuxuu dhahay arrintaasna ma garanayo laakiin arrintaas waxaa waaye energygiisi baa ninkan kaydsamay okay inkastoo dadka aan weli cabsi ka qabo inaan la macaamilo wixii isoo maray darteed dilemma waxaa la dhahaa jiray soo dhacaysa oo ah like waxaad u malaynaysaa qof kasta inuu ku og yahay qof kasta inuu kaa warhayo flashbackii bay maskaxdaada ku dilaysaa so taasna waxaad uga bixi karaysaa nin ahaan haddii aad siigaysan jirtay boon daawan jirtay aad hadda clean ka soo noqotay oo aad ka soo kabsatay oo aad hadda rabti inaad dadka dib u dhex geshid dadka la macaamishid asxaab cusub siyeelid waxaasoo dhan waxaad uga soo kabsan kartaa taas waxaa waaye inaad moor dadka dhex geshid iskana saartid maskaxda inuu qof kasta sheekadaada og yahay ama qof kasta inuu adiga kaa warhayo ama qof kasta uu ku fiirsanayay waayo guilty baad dareemaysaa mar kasta waxaas leedahay talo dadku maku kaa warhayaan talo may ku dareemayaan inaad waxaan samayn jirtay taasina waxa ay ka dhalataa khalkhalkii iyo rafaadkii aad soo martay okay ugu dambayntii waxaan aad kaaga mahad celinayaa barnaamijka aad noo soo diyaarisid haddii ay noqon lahayd YouTube iyo TikTok waan ku faraxsanahay inaan ardaygaaga ahay oo aan wax ka faa'iideysanayo waxaan jeclaan lahaa haddii testimonigan aad public ka dhigaysid inaadan magacayga qarinin magacayga aad qarisid magacaaga waan qariyay awow laakiin like wax ka qurux badan ma jirto markuu ku dhooq nin dhalinyaro ah noloshayda mugdi baan ka soo saaray because of fariinaad sheegaysay darteed like it's one of those things lacag hataa ma jirto brother like inuu ku dhaho qof mugdi baan ka soo baxay because of fariintaada darteed oo podcastgaasaan dhegaystay maalinkaas wixii ka dambeeyey waxaan bilaabay inaan noloshayda waddada ku soo rido it's like man it's fucking priceless it's fucking priceless and this is the reason aan barnaamijkan u wado like nothing else brother wax kale ma jirto si kasta haddaad barnaamijkan lacag ugu dirtid si kasta haddaad barnaamijkan u taageertid waxaasoo dhan ka qaalisan waxaa waaye inaan arko hal nin oo ile nolosheeda sababaad wahayd inay isbedesho god baan ka soo baxay do you guys understand 13 sano siiga waxay tahay 13 sano addiction iyo balwada siigada iyo boondaawashada inuu qof ku jiro oo uu nolosha ka quustay oo uu godkaa ka soo baxo
Do you guys understand? Ma fahmi karaysaan waxay leedahay? fahmi karaysaan? It's not easy. It's not easy, brother. 74 beri buu hadda maraya. Waxaan rajaynayaa in more uu ii sheeg sii wado 1 sano 2 sano 3 sano. Nin ahaan haddii ay noloshaada isbedeshay barnaamijkan darteed fariin iigu soo dir emailkayga oo ah fikradahaxaliye@gmail.com fikradahaxaliye@gmail.com okay fikradahaxaliye@gmail.com rag badan baa godka mugdiga ah ku jira waxaan habeen iyo maalin iyo subax iyo galab aan shaqadan u hayana wax kala maaha raggaa godka ku jira inay ka soo baxaan inay dib raganimadooda u dareemaan do you understand absida aad ku nooshahay iyo like adi dhan inside baad ka bahdilan tahay fahmaysaa 13 sano ninkaa siigaysanayay maantana wuxuu taagan yahay you know like you cannot imagine waxa ay qabsoomay so nin ahaan haddaad haysatid testimony ama isbedel uu kugu dhacay intii barnaamijkan aad ku xidhnayd oo aad si cad ula wadaagi kartid laba xaniyoolayaasha kale si aad nin xaaladdaa ku jira aad u dhiirigelisid oo aad u sheegtid inay raja jirto dhammaadka fariin igu soo dir emailkayga magacaagana lama sheegayo ha ka baqin magacaaga iyo identitygaaga inaan share gareeyo ama qofkaa tahay dhibaato ma jirto waan fahansanahay xaaladaada fariin igu soo dir fikradahaxaliye@gmail.com waxay rabtaa ha noqoto okay so you cannot imagine dhibaatooyinka ragga dhalinyarada haysta ee aysaa godka mugdiga ugu jiraan hal cid oo kale oo ka hadasha ma jirto everyone is faking it brother you understand waxaas lagama hadlo waxaas waa wax laga xisheeda ku hayaan kulligood iyo waxaan muhiim ahayn baa laga hadlaya online you understand nin ahaan haddaad ku jirtid godkaas siigada iyo daawashada videoyada galmada ah rajaa jirta waad ka soo bixi karaysaa rajaa jirta waad ka soo bixi karaysaa waad isbedeli karaysaa kor baad isu soo qaadi karaysaa dib baad u abuuri kartaa qofkaad tahay dib baad u abuuri kartaa okay ha quusanin ha u malayn inay raja jirin ha u malayn inaysan jirin waddo kale oo furmi doonta way jirtaa laakiin isweydii inaad rabtid inaad godkaa kusii jirtid iyo in kale isweydii okay isweydii like brother to beat your meat 24 saac ها 24 saac inaad gacanta ku haysid guskaaga like maalin hal mar oo kaliya sariirta saaranta inaad 3 jeer siigaysatid it's an addiction maaha guys raaxa iyo baashaal iyo ma aha okay so haddaad iska rajo dhigtay oo aad addicted ku tahay daawashada videoyada galmada poonka loo yaqaano iyo siigaysiga oo maanta daciif ka dhigay 90% rag weynaha adduunka Soomaalida kaliya ma aha rajaad leedahay waad isbedeli kartaa awooddaada raganimo iyo raganimadaada saxda aad dareemi doontaa maalinka joojisid inaad guskaaga gacanta ku qabatid dadku say kula dhaqmi jireen xataa way isbedelaysaa like nafsadaada si aad u aragtay adigu xataa waad bedelaysaa maalinkaas yeah that's why raggan ay escape u raadiyaan ragga ay u cararaan like ay u raadiyaan you know meel kale inay noloshooda daawo u tahay ama naag ha noqoto ama video galma ha noqoto ama porn ha noqoto ama inay daawadaan soft porn ha noqoto you understand waxa yaraanaya the more adiga aad siiga samaysid the more adiga aad imagination ku noolaatid adoo galma samaynaya kadibna aad biyo iska keentid waxa yaraanaya testosteronekaaga zero buu noqonaya so waxay noqonaysaa heer xataa guskaaga oo aan kicin inaad biyo ka keentid because of addiction bay noqotay now kama carari karaysid now xataa ma sugaysid intuu guskaagu istaagayo okay cabsi baad ka qabi doontaa inaad xataa haddaad naag guursatid aad galma samaysid waayo waxaad og tahay you know saad muruqaaga week uga dhigtay guskaaga muruq waay maaha guskaaga wax kale ha u malayn guskaaga waa seeda iyo muruqa waay sexual energy-ga ninka inay kugu jirto awooddaada aad galma ku samayn kartaa inay gudaha kuugu jirto wax badan baad ku qabsan kartaa oo
it's easy in la dhaho oo siigada jooji faraha ka qaad laakiin rag baa jira god ku jira and they don't know godkaas sida looga baxo they don't know ciday la hadlaan wareersan yihiin waxay u malayaan this is the only option like aniga awal baluuser Soomaaliya Cabdi Khasaaran ah noloshooda halkaas godkaasan iskaga jiray aniga raje ma lihi ma shaqaynayo waxa ma baran doon like just I don't care like nolosha loser kaasan ka ahaanaya war fiican baa ku hayaa waad isbedeli kartaa waad ka bixi kartaa godka aad ku jirtid rajaa jirta oo wallaahi 13 sano nin siigaysanayay hadduu ii soo dirayo fariin ah barnaamijkayga dartiis inuu isbedel ku bilaabay like man it's just rajaa jirta taas oo aniga dhigi karaya okay rajaa jirta aad baan ugu wasla markaan arko xaliya naagaha basbulaha naagaha arrimaha naagaha no mesh nolol baa la badbaadinaya rag baa good real time ka soo baxaya fucking proud of you nin kasta oo joojiyay siigada nin kasta oo joojiyay addictionka uu qabay ama poonka ama maxaa la jiray balwada ama khamrada ama xashiishada ama maxaa la jiray sigaarka ama balwaday doonta ha noqoto maalinka ka dambaysa maalinba in bay kusii dhiibaysaa heer marka waxaad aadaysaa deep aad ku jirtid aadan aqoonin cidaad caawimaad